gaashaanbuurta NATO waxay ka digtay in dagaalka Ukraine uu socon doono muddo sanad ah kadib markii ay darseen xaaladda dagaalka iyo mowqifka dhinacyada. ku-xigeenka xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO wuxuu warbaahinta qaarkeed u sheegay in imika aan la joogin waqtigii uu dhammaanayay dagaalka Ukraine, balse sanadaha soo socda la arki doono dagaalka oo sii jiitama. waa sida uu hadalka u dhigay. waa hadalla ku soo beegmaya xilli dagaalka bariga iyo duqeymaha magaalooyinka waaweyn ee Ukraine ay sii socdaan. khamiistii shalay saacadihii dambe wuxuu Ruushku duqeeyay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. waa xilli uu magaalada ku sugnaa xogayaha guud ee qaramada midoobay oo la kulmayay madaxweynaha Ukraine si uu ugala hadlo dagaalka iyo sidii xal nabadeed loo unki lahaa. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu ku eedeeyay Ruushka inay weerarka la beegsadeen xogayaha guud ee qaramada midoobay oo Kiev ku sugnaa, isla markaana diidanayeen booqashadiisa. waa sida uu hadalka u dhigay. Antonio Guterres wuxuu ku canaantay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in doorkii la rabay aanay ka qaadan xal u helidda dagaalka Ukraine. wuxuu carabka ku adkeeyay xaaladaha bini'aadantinimo ee wajahayaan shacabka Ukraine oo malaayiin ka mid ah ay ku qaxeen Yurub. dhanka magaalada Mariupol ee xeebta dhacda Jimcaha maanta waxaa dadka shacabka ah laga saarayaa aagga warshadaha ee Mariupol oo ay haystaan imika haraaga ciidamadii Ukraine ee difaacayay magaalada. Mariupol waxaa haystay ciidamada Ruushka oo raba in ciidamada Ukraine ee wali isdifaacaya ay isku dhiibaan. Mareykanku wuxuu saacadihii la soo dhaafay ballan qaaday adduun kale oo dhan $330 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ah taageero ay siinayaan dalka Ukraine. taageeradan waxaa ku jirta hub kala duwan oo la siinayo ciidamada Ukraine si ay iskaga caabiyaan ciidamada Ruushka. Khadar Haybasaab TV. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 15 eber.